kale saddexdan dabeecadood waxay ku habboon tahay inaad ka fogaatid, balse intaynan u guda gelin muuqaalkan maanta, fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga. Qodobka koowaad, qofka markasta dhibanaha ah. Weligaa ma arki doontid qofka noocan isagoo qaadaya mas'uuliyadiisa shakhsiyadeed, wuxuuna u arkaa nolosha dhibkeeda inuu dhibano u yahay iyo in cadaalad uusan helin. Keliya maskaxdiisa waxaa ku qafulan inuu dhibana yahay. Guusha wuxuu u arkaa nasiib daro, guuldaradana sidoo kale ma aaminsan in howlkarnimo lagu gaaro horumar. Dadka noocaana waxay caan ku yihiin aysan dadaalin. Waa kuu muhiim inaad la saaxiibto dadka sida wanaagsan u fakara, sababtoo ah dabeecadahooda waxay ku siinayaan awood aad ku gaarto guulo waaweyn. Laakiin dadka xunna mar weliba waxay isku dayaan inay kuna jebiyaan. Haddii aad la saaxiibto dadka xunna waxay ku horseedayaan inaad adiga la mid noqoto oo aadan noqonin qof hami sare leh. Weligaa ka fikir inaad kaligaa guul gaarto, fikir sida ay guul u gaari lahaayeen kooxda aad la shaqayso ama aad wax isla barataan. Qodobka labaad, qofka dhanka xun wax ka eega. Qofka dhanka xun wax ka eega wuxuu dhibaato ka dhex arkaa xal kasta oo la keeno, wuxuuna jecel yahay xamaasada ku dhex jirta fikrad kasta oo la keeno. Marka ay u furmaan albaabka fursadaha, isaga waxaa uga muuqda mugdi aan laga gudbi karin, wuxuuna isku dayaa inuu yareeyo xawaaraha horumarkaaga. Haddaba qofka noocaas ayuusan qayb ka noqon noloshaada. Wax horumar ah ma gaaraysa haddii qofkaasi uu noloshaada qayb ka yahay. Qodobka saddexaad, qofka wax kasta dhaliil ka keena. Wuxuu caan ku yahay faafinta siraha iyo xog qaldan oo ku saabsan dadka oo dhan, si ay u maamulaan maskaxda dadka caqliga yar. Haddaba iska ilaali dadka noocaas ah, sababtoo ah adiga xataa waad ka mid tahay dadka wax ka sheegaya. Qofka dhanka xun wax ka eega ma jecla qofka xirfadaha wanaagsan leh ee mar weliba dadaala si ay u helaan xirfado kasii wanaagsan, waxayna aalaaba raadiyaan arrin culus ay qofkaas ku dhaliilaan. Weligaana ha ogolaan in qof aan waxba qabsan karin uu kuu sheego sida wax kasta loo sameeyo. Ugu dambeyn, qofkaas wuxuu kaa dhigi doonaa sida uu asaga yahay haddii aadan ka fogaan. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. Haddii uu ku anfacay, like saar lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.